waa 5:00 habeenimo 30 Maarso 2024. Xaruntan lagu magacaabo Garter World waa xarun la adkeeyay amnigeeda waxayna leedahay siligyo fiiqan oo elektaroonig ah. Kaamirooyin ayaa si nidaamsan ugu dul wareegaya hareeraha xarunta. xitaa qalabka dareemaha dhaqaaqa ayaa baaraya marinada cidlada ah iyada oo falaaraha aan la arkin ay sameynayaan ilaalin aan kala joogsi lahayn. laakiin gudaha xarunta waxaa ku jira $30 milyan sidaas uma sahlana. weli waxaa lagu habeeyey baakado waaweyn si loo qaab ekeysiiyo baakadaha lagu raro alaabta. digniinta dhaca ayaa ka qaylinaysa goob kasta oo ka mid ah xaruntan. intaas waxaa laga taxadaraya waa inaan lacagtaas la dhicin. laakiin waxaysan ogeyn almost tuugadu waxayba saaran yihiin saqafka ka sareeya dhisme deris la ah halka ay lacagtu taalo. halkaas waxaaba taagan 6 nin oo xiran dhar madow oo ciidan. waxay indhaha ku hayaan xarunta iyagoo adeegsanaya qalabka aragtida habeenkii ee ay adeegsadaan militariga. faahfaahin kastana way haystaan. daciifnimo kastana oo ay xaruntu leedahay way la socdaan. muddo bilo ah oo ay daraasaynayeen dhismahan iyagoo khariirad ka sameeyay xagal kasta oo ay kaamiradu qaban karto. waayahay saaxiibayaal, meel kasta oo aan la arki karin way ogaadeen iyo cilad kasta oo ku jirta nidaamka amniga oo loo maleynayay inuusan waxba ka gudbin karin. hogaamiyaha kooxda ayaa hagaajiyay qalabka isagoo si gaara u eegaya meesha laga geli karo. tan ugu roonna waa saqafka oo ay toddobaadyo ka hor aqoonsadeen, isagoo si hoose ugu sheegaya xarfaantiisa in qof walba booskiisa joogo. waxayna u sheegeen inay diyaar yihiin. kooxda diyaar ayay wada ahaayeen. sidoo kale gaadiidkii baxsigana waa la meeleeyey. qorshaha kooxda ayaa ahaa in 4:15 subaxnimo maalinta axad ah weerarku bilaabmo. islamarkiiba saaxiibayaal, booska kooxda ayaa soo saaray qalab uu ku jiro birta. waxayna xisaabiyeen cabirka saxda ah ee qof bini'aadam ah ka gudbi karo iyaga oo ka fogaanaya tiirarka qaab dhismeedka ah ee kicin kara dareemayaasha gariirka. qaybtii saqafka ahaydna kooxdii saarneed waxay bilaabeen in mid mid ugu soo degaan iyagoo iska ilaalinaya dhawaaq kasta iyo wax walba oo keeni kara fashil. haddaba saaxiibayaal, mid walba xariga ayuu gudaha ugu gudbay bakhaarka. soo degistoodu waxay u dhacaysaa sida qoobka ciyaar si taxadar leh loo qorsheeyey oo dembi ah. muraayadaha aragga habeenkii ayaa goobta weyn ee bakhaarka u bedelay muuqaal u eg adduun kale. saaxiibayaal, gudaha xarunta waxaa goob kasta fidsan lacago loo habeeyey qaab alaab baakadaysan. dabcan saaxiibayaal, bakhaarku waa meel aad u weyn oo mugdi ah. baakad kasta waxaa ku jirta lacag ka badan inta dadka badankood ay noloshooda oo dhan arkaan. nidaamka amniga ee bakhaarkuna wuxuu abuurayaa waddo caqabada ah oo aan indhaha lagu arki karin. dareemayaasha dhaqaaqa waxay bidix iyo midig ugu socdaan qaabab aan la saadaalin karin. laakiin kooxdani nidaamkani waxay baranayeen bilooyin, diyaar ayayna u yihiin xalinta caqabad kasta. waxay yaqaanaan qaab kasta oo uu dareemuhu u baaro goobta. ninka safka hore jooga wuxuu gacmihiisa ku sameeyey calaamado uu ka bartay tababarkiisa military. wuxuu u dhaqaaqayaa markasta uu tirsado 1, 2, 3. way istaagaan sidii taalo oo kale markii falaaraha aan la arki karin ay korkooda marayaan. kadibna waxa ay si degdeg ah uga sii gudbaan halka banaanka ee aan falaaruhu kasoo gudbi karin. saaxiibayaal, dhibka halkaas kuma ekahan. baakad kasta waxaa lagu duubay caag warshadaysan waxaana ku qoran koodo tilmaamaya macaamiisha iyo ganacsiga ku kala yaala koonfurta California ee Garter World ku aaminay inay ilaaliso lacagihii ay dhigeen. aan banaanka soo aadno saaxiibayaal, waxaa waddada ku soo socday sarkaal loo yaqaan Martinez isagoo saaran gaari roonda ah lana qaxweynaya. lamantiisa ayaa ku dhahay habeenku deganaa oo qurux badanaa, balo war uma hayo waxa ka dhacaya hareerihiisa. isagoo eegaya dhismayaasha warshadaha ee jidadka ku yaal. qof walba wuxuu gurigiisa kula jiraa qoyskiisa. wax fikrada kama hayso in 6 dabaq meel ka sareysa jidka uu marayo ay ka socoto howltaa ka duwan. tani waa dhaca ugu weyn ee taariikhda Los Angeles. kooxdan waxay gaartay qolkii khasnada. albaabkii weynaa ayaa hortooda ka muuqday. waa bir adag waxaana ku dhex jira qufulo elektaroonig oo ku xiran nidaamyada amniga ah ay naqshadeeyeen injineero si xad dhaaf ah uga baqa jabinta amniga.
waa nooca loo sameeyey inay joojiso xitaa ciidan hub nuuc waliba iskaba daaya tuugo, laakiin qabiir farsamo ayayba sii diyaarsadeen. dabcan kuwan waa kuwa soo tashtay. islamarkiiba waxay bilaabeen jebinta qalabyada amniga. lakabyadii sirta ahaa ayaa markiiba kala furfurmay, iyagoo algorithmska ku jira hooska internetka ay weerareen. lakabkii koowaad ayaana sidaas ku jabay, waxayna si toosa u galeen saxabayaal habkii nidaamyada kale. nidaamka qufulka qasnadu wuxuu ka kooban yahay 17 nidaam oo kala duwan, mid kastana loogu talagalay inuu kan kale kayd ahaan u bedelo. qufulo farsamo, wareegyo elektaroonig iyo iskaano biometric ah, dhammaantood si wada jira ayay u shaqaynayaan si ay u abuuraan amni loo malaynayo inuu kaamil yahay. laakiin kii labaad iskaba daaya, kii saddexaad ayay dhaafeen, waxayna u gudbeen xaqiijintii ugu dambeysay. 17 hab ee kala duwan ayaa sii daayay qabashadoodii ay ku hayeen $30 milyan. albaabkii weynaa si tartiib ayuu u furmay. boqolaal, 20 iyo 10 waa muuqaalka dhabta ah ee hantida ee dadka badankoodu keliya ku riyoodaan. kooxdii ayaa farxad dartii dhaqaaqi waayeen, xitaa tuugadii ayaa la yaabay lacagta intaa la eg oo hal meel lagu ururiyey. waxayna noqotay waxna la aamini karin. diiradda saara lacagta ayuu si adag ugu yiri hogaamiyaha kooxda. waxaan haysanaa 7 daqiiqo oo keliya intii aysan imaanin roondada xigta. waxay u shaqaynayaan sida mashiin oo kale, taasoo ka dhalatay bilooyin ay tababar ku jireen. waxay bilaabeen inay lacagta ku guraan boorsooyin ammaan ah. boorsooyinka waxaa loo sii gudbin doonaa gaari loogu talagalay inay qaadaan culays aad u badan, maadaama lacagtu culus tahay. lacagtu waxay u qulqulaysaa sida biyo oo kale. baakad kasta waxaa loo gudbinayaa qofka xiga. booliiska ayaa jawaab celinaya digniinta afraad ee dhacda 18 saacadood gudahood. 2 gaari oo booliis ayaa u soo dhaqaaqay xarunta, iyadoo saraakiishu ay dareemayaan daal iyo niyajab maadaama dad marar badan uga jawaabay digniino been ah. gudaha tuugadu way istaageen, waxay dhegaysanayeen tallaabooyinka bannaanka, albaabo la xiraayo, raadiyaal dhawaaqaya, sheekooyin ku saabsan qaxwo iyo saacado dheeraada oo shaqo. waxay u badan tahay digniin been ah ayaana laga maqlayaa raadiyaha booliiska. saraakiishuna waxay maraan xayndaabka, waxay leerarkooda ku ifinayaan hareeraha iyo goobta lagu raro alaabta, iyagoo raacaya nidaamka loo dejiyey. laakiin saaxiibyaal, nidaamkaasi wuxuu u malaynayaa inay la macaamilayaan dambiilayaal caadi ah. booliiska ayaa yidhi dhammaan waa hagaag, xaaladdu waa caadi. gaadiidkii roondada ayaana ka tegay goobta, waxayna gadaashooda uga tegeen 6 dambiile oo hadda dhaca samaynaya, kuwaas oo 90 ilbiriqsi uga gudbay halistii ugu cusleed. haddii booliisku arki lahaa, ugu dambeyn fisiga ayay geli lahaayeen. saaxiibayaal, waxay dib ugu laabteen asxaabtii tuugada rarista, laakiin hadda si ka dhaqso badan sidii hore. baakadyadii ugu dambeeyey ayaana la raray, waxaana u dhaqaaqeen wejiga labaad ee qorshaha. halka ay ka bixi doonaan waa dalool laga jaray derbiga dhinaciisa, kaasoo ka dambeeya qalabka waaweyn ee qaboojiyaha. halkaas ay mid mid uga dhex baxeen daloolkaas, waxayna ku dhex lumeen waa berigii Los Angeles. baxsashadoodu waxay u dhacday si ka qurux badan howlgal military. qorshaha ayaa ahaa mid heer sara 100% guuleystay. 3 gaari ayaa loo meeleeyey meelo istaraatiiji ah oo kala duwan oo magaalada ah. gaariga koowaad waa SUV oo madow ah oo si fudud ugu dhex qarsoomaya muuqaalka magaalada, taarikadana la bedelayo saacad kasta. darawalayaashii waxay xifdiyeen waddo kasta oo macquul ah, jid kasta oo gaaban, iyo goob kasta oo ay kaamiradu taallo oo ay ka dhuuman karaan. lacagtii ayaa qaybsantay. lacagtiina saaxiibayaal waxay u qaybsantay 6 qaybood. koox walbana waxay qaadatay waddo gaar ah. waxay mareen waddooyinka caadiga ah ee dhex mara xaafadaha, iyagoo ka fogaanaya waddooyinka waaweyn ee freewayska, halkaas oo nidaamyada automatic ahi ay duubaan taarikada baabuur kasta. gaariga koowaad wuxuu u jeestay galbeedka dhanka badda, isaga oo maraya waddooyinka caadiga ee dhex mara Santa Monica. gaadhiga labaad wuxuu u jeestay bariga, isagoo dhex maraya bartamaha magaalada, kana faa'iideysanaya firaaqada subaxnimada Axada. gaadhiga saddexaad wuxuu u baxay waqooyiga dhanka dooxada. mid kasta wuxuu raacayaa waddo si gaara loogu qorsheeyey inay ka fogaato in la ogaado ama la tixraaco. waagii ayaa baryey oo qoraxdii ayaaba soo baxday. kooxdana waxay ka soo tageen baakada maran. Isniin 1 Abriil, shaqaale ka tirsan Garden Wall ayaa xarunta timi.
iyada oo sidata qaxwadeedii subaxnimo Isniinta, iyada oo filaysa maalin kale oo caadiya oo ay u shaqaynayso lacagaha ganacsiyada ku kala yaala koonfurta California. Waxay kaarka aqoonsiga ku maraysay albaabka weyn, waxayna dhex martay bakhaarka iyada oo dhaafaysa safaf baakadaha oo ay ahayd inay ka buuxaan lacago. Miisaankii iyo culayskii caadiga ahaa ee hantidu waxay u muuqdaan inuu ka yaraaday sidii loogu talagalay. Waxay u soo dhowaatay aagga khasnada dabadeed, iyada oo yaaban ay albaabkii weynaa ee khasnadu aragtay isagoo furan. Nidaamka shaqaduna wuxuu dhigayay in khasnadu markasta xirnaato uuna furo oo keliya shaqaalaha loo ogolaaday saacada gaara. Gudaha markay gasheen, khasnadu way maran tahay, baakad kasta way maran tahay, maba oga in halkaas si fiican ay qolo uga shaaxeeyeen oo ay ku dabaaldegeen iyaga oo horey ula tegay $30 milyan. Koobkii qaxwada ayaa dhulka ku dhacay. Kolkaas qayle ayay afka furatay. Halkii ayaa waardiyaasha amniga soo ordeen, laakiin wax dambe oo la ilaaliyo ma jiraan. Daqiiqado gudahood, wakiilo federaal ayaa buux dhaafiyey xarunta. Farsamayaqaanada goobta dembiga FBI-da waxay baareen goob kasta si ugu yaraan faro ama tixraac laga yaabo inay ka tageen ay iyagu helaan, iyo qayb kasta oo yar oo caddeyn karta oo laga yaabo inay horseedo kooxdii sameeyey wax aan suurtagal u muuqan. Daloolkii saqafka ayaa loo jaray si aan caadi ahayn. Hore waan idinkugu sheegay, cabirkiisa waxaa loo xisaabiyey si qof bini'aadam uga gudbi karo iyadoo aan waxyeello loo geysan. Qaab dhismeedka daloolkii dhinacyada derbiga laga sameeyey wuxuuna u baahnaa qalab warshadeed, qof si fiican u fahmaya injineernimada dhismaha. Khasnadii waxaa la furay iyadoo aan waxyeello loo geysan hababka qufulka. Taasi waxay muujinaysaa midkood inay heleen xog gudaha oo aanay ahayn inay helaan ama ay isticmaaleen tiknoolajiyad ka dhigan tallaabo aad u weyn. Diyaaradaha yaryar ee hawada laga hago waxay khariirad ka sameeyeen goobta dembiga, iyagoo muujinaya waddadii ay tuugadu dhex mareen. Baarayaashu waxay daraaseeyeen muuqaalada kaamirooyinka ganacsiyada deriska lahaa, iyagoo raadinaya dhaqdhaqaaqyadii baabuurta saacadihii ka horeeyey iyo ka dambeeyeyba dhaca. Gaarigii SUV-ga ayaa ka muuqda meelaha ay kaamiradu arki karto, dabadeedna waxay ku qarsoomeen meelaha indhaha kaamirooyinku qaban karin. Baaritaanka dijitaalka wuxuu muujinayaa faragelin elektaroonig ah intii lagu jiray saacadaha muhiimka ah. Qof ayaa dhaca lacagta u keenay qalab dagaal elektaroonig ah oo heer militari ah. Magaalada ayuu ku faafay wararkii. Kooxdii tuugadu waxay wajahaysaa qaybta ugu khatarta badan howlgalkooda, sida loo dhaqo $30 milyan oo lacag la xaday ah. Guryo qarsoodi ah ayay ku kala qariyeen lacagta, waxayna fahmeen inay haystaan toddobaadyo, laga yaabee bilooyin, ka hor intii aan ciidamada federaalku magaalada ka dhigin meel amnigeedu sareeyo oo aanan laga shaqayn karin. Laakiin $30 milyan waxay furtaa albaabo badan, waxay abuurtaa fursado. Nidaamyadani ayay u mariyeen lacagtii ay soo dhaceen. Qaar waxay ku dhex milmeen macaamilada hantida maguurtada ah, qaar kalena waxay galeen ganacsiyo sharci ah oo awood u leh inay qaataan lacag caddaan ah oo badan. Qayb kale waxay ku baaba'een nidaamyada bangiyada dibadda, suuqyada cryptocurrency-ga, biraha qaaliga ah iyo ganacsatada. Wax kasta oo lacagtii la xaday u bedeli kara hanti aan si fudud loo raadin karin. Howlgalkooda lacag dhaqiddu wuxuu ku dhow yahay inuu soo idlaado. Maaha oo keliya inay lacagta qarash gareynayaan, waxay tirtirayaan raadkii dembiga ee lacagta. Waxay lacagtii la xaday u bedelayaan hanti sharci ah iyagoo adeegsanaya xeelado shaqaale. Baaritaanka FBI-du wuxuu si xowli ah ugu fiday meelo badan. Wakiilka gaarka ah ee Davis ayaa wareystay 10 qof oo shaqaalaha Garter World ka mid ah, qandaraasleyda amniga, qof kasta oo geli kara xarunta ama wax ka ogaa siday u shaqeynayaan. Wareysiyadanina ma aysan keenin xog weyn oo qof lagu qaban karo ama tuugo lagu heli karo. Baaritaanada maaliyadeedna saaxiibayaal waxay soo saareen macmiilo shaki leh, laakiin kooxdii tuugadu waxay qorsheeyeen. Xitaa baaritaanka gudaha waxay sameeyeen kala fogaansho u dhexeeya xubnaha, iyagoo dhisay lakabyo kala saaraya qorsheynta iyo fulinta. Baaraha howlgalka ee Murphy ayaa daraaseeyey cadeymaha, wuxuuna xubnaha kooxda baaritaanka u sheegay waxay horeyba uga shakiyeen arrintan, waxayna si cad u muujinaysaa inay ahayd shaqo gudaha ah. Ma samayn karaan wax sidan u casrisan iyada oo dibadda laga joogo xarunta, laakiin caddeynta in qof gudaha ay gacan ka geystay waxay u baahan tahay in loo helo qof diyaar u ah inuu khiyaaneeyo $30 milyan, isla markaana diyaar u ah inuu naftiisa halis geliyo isaga oo maxkamad ka markhaati furaya.
toddobaadyadu waxay isu beddeleen bilooyin, baaritaankuna wuxuu ku fiday gobolo badan. Waxay raaceen raadadka lacag oo ku dhammaaday waddooyin aan natiijo lahayn. Waxay wareystaan tuhmanayaal islamarkiiba la soo baxaya qareeno iyagoona xitaa hal su'aal ka jawaabin. Kooxdii tuugadu waxay u kala firdheen magaalooyin. Qaar waxay ku biireen dhaqaalaha lacagaha, qaar kalena waxay u baxsadeen dalal leh sharciyo, sirta bangiyada ilaaliya iyo heshiisyo mas'aafurino daciif ah. Dhammaantood waxay ku nool yihiin lacagtii ugu weyneed ee dambiilayaal abid ka helaan magaalada. Laakiin ugu dambeyn qof iyaga ka mid ah ayaa qalad samayn doona. Qof ayaa iska iibsan doona wax aad uga qaalisan dakhligiisa. Qof ayaa iibsan doona gaari aad u qurux badan. Qof ayaa ku noolaan doona nolol aan la jaan qaadi karin dakhliga uu sheeganayo. Qofna wuxuu la hadli doonaa qof qaldan. Qof kale ayaa ku kalsoonaan doona xiriir qaldan. Qof ayaa heshiis qaldan la geli doona. Baaritaankuna wuu sii socdaa. Hunguri, khiyaano, shaki iyo cabsi. Kuwani waa waxyaabaha bani'aadamka burburiya shirqoolada dambiilayaasha. Si kasta oo wanaagsan oo loo qorsheeyay meel ka mid ah Los Angeles ama qaaradaha kala duwan ee dunida, kooxdii Easter Sunday waxay baranaysaa in fulinta dhaca ugu wanaagsan ay ahayd oo keliya inaad xor ahaato adigoo haysta $30 milyan oo la xaday iyada oo wakiilo federaal ahna ay ku ugaarsanayaan. Taasina waa caqabadaha dhabta ah. Inkastoo kooxdu ay garaacday nidaamka, waxay ka xeelad badnaayeen FBI-da waxayna ku biireen xaliyada dambiyada. Laakiin xaliyadu waxay leeyihiin dabeecad ah inay soo jiitaan dareenka nooca qaldan. $30 milyan waa bartilmaameed aad u weyn. Ugaarsiguna wuu sii socdaa. Saaxiibayaal, sheekadeena maanta waa intaas. Waxaan rajaynayaa inaad like, subscribe and comment inaad inoo dhaafi doontaan. Till then, ciao.